adi markii ay bilaabatay khudbada oo muddo 2 daqiiqo socotay waxaan maqalnay qarax weyn oo ka dhacay iridda dambe ee 15 May dhinaca bari kadib rasaas ayaa ku xigtay qaadimkiina uu iska sii wada khudbada muddo 2 daqiiqo ilaa 3 aan dhihi karo marka dadkii waxay bilaabeen inay banaanka u baxaan oo 2 irid oo lahaa masaajidka irid oo madaxweynaha ka soo galay iyo 2 kale oo irid labada kala mid xirneed marka dadku waa isbuurteen oo anaga waxaan ku jirnay ilaa iyo 7 qof oo ugu dambeysay marka aan iridda ka soo baxnana jaranjarta oo kabaha la dhigto kama bixi karin maxamed intaadan soo bixin dadkii meesha ku tukanayaad ka taqaanay oo la yaqaano oo bulshadu taqaano wallahi dad badana ku jiray Allah u naxariisto General Nuur Shirbow safka hore madaxweynaha meesha uu ku tukado ayuu kursi loo dhigo oo kitaab ku aqrisanayay waxa kale oo u jeeday General Diini oo ahaan jiray taliyaha hore xooga waxa kale oo agteeda fadhiyay wasiirka arrimaha gudaha goodah waxa kale oo agteeda fadhiyay wasiirka maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane waxa kale oo horteeda iiga muuqday wasiirka biyaha jaamacada aniga waxaan nasiib u yeeshay 7 qof oo ugu dambeysay 6 qof oo ugu dambeysay markii aan iridda inaan ka soo baxno damcana waa bixi waayna xabadihii labada dhinac nooga socdeen dhinacana iridda ay ka soo galeen nimanka xabada ka soo ridayeen qoryo culus dhinacan kalena xafiiska madaxweynaha iyo askarta amisom iyo askarta dawladda xabada culus isweydaarsanay marka meesha jaranjartan go'doon ku noqonay adiga iyo 7 qof kale maxaad aragtay adiga markaan qadar ilaa iyo 10 daqiiqo xabada socotay yaa waxaa noo soo galay iriddan muu gelin laakiin iriddu soo istaagay nin jingal wata daraawiista oo si fiican oo askarinimo u labisan oo booska xabadaha wixii oo dhan u dhan yihiin anaga waa faraxno waxaan isleeyahay askarta dawladda idin imaato idin badbaadinaysa nasiib wanaag markii uuna weydiiyey maxaad tihiin oo aan dhahnay wardad raacyadoo meesha ku tukanayaan nahay ee badbaaday askarta dawladdan u maleynaynay kor ayaa qori saarnaa laga soo toogtay qori xoog laa ku dhacay kadib cabaaru meesha ku raftay qorigii uu watay waxaa ka qaatay nin nala joogan u maleynaya inuu yahay shaqaalaha madaxtooyada oo labisnaa oo kamida 7diinay meesha ku hartay oo dharka wuxuu watay fatishaariga ay shaqaalaha madaxtooyada xirtaan marka ninkii aa dhaawar qoriga aan ku dagaalno noo qaado ninkii aa qoriga qaatay kulay asaga hataa wuxuu u maleynaa wali askarta dawladdu anaga u maleynaynay ninkii aa 3 xabadu iridda ku furtay jid xabad fura kadib asaga dhinaca shabaab buu iska ilaalinay oo iridda ka soo galeen dhinacan madaxtooyada dharku wato way ka saayeen oo dhinaci wuxuu aaday xafiiska madaxweynaha markii adag qadar 5 daqiiqo kadibna cunug yara soo galay oo asna jingal wata wali waxaan u maleynaynaa inay askarta dawladda yihiin annaga jingalka markii dhammaan fahmi doona oo wuxuu kugu yimid jaranjartii masaajidka oo laga soo galay jaranjartuu soo koray iridda markuu gali rabay oo wuxuu na weydiiyey maxaa tihiin wardad raacyadoo meesha ku go'doomaanahay na bixyaanire marka xabaduna soo dhaxdhiga anagoo 5 isdaba fadhinay marka xabada ugu horeysay darbiga ku dhacday kadib wuxuu ila ekaanin xabadaha ka dhamaadeen xabadahana yaryareysanay qoriga AK47 ka uu dhacaa baas iyo xabad kaliyaal u joogay marka ninkii noogu horeeyo madaxa oo fadhiyo madaxa kaga dhufta soo gariiray oo cunug yaroon awood balahayn qoriga qaadi karin oo markuu xabad reedana gadaal u dhacay dhaawac buu ahaa marka dhaawac lagu ka jiisay marka ninka markuu madax kaga dhuftay kii ku xigay oo daba fadhiyo haddana madax kaga dhuftay marka ninka saddexaad oo ku xigay wuxuu ahaa agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamuud Indhacase Maxamuud markuu wuu istaagay markii labada fadhiga lagu toogtay wuxuu yiri war islaan ma tiinana laynina Maxamuud hadduu dagaalamo tiisa gashay tii rabbi gooni waay laakiin wuu la qabsan karay cunuga tabar ma lahayn dhaawacna uu ahaa asoo dhahay war islaan ma tiinana laynina iyo xabada asoo qoriga la gariiray madaxa kaga dhuftay kadib anigoo fadhiyo ninka afraad aan waxaan sugo markaa ma jirto fadhiga hal mar ka soo booday adiga qoriga aan la qabsaday adiga hortaala buu dilay marka oo hortaada yaala 3 dilay uu ku jiro xafiiska ra'iisul wasaaraha agaasimaha marka ninka afraad aniga ahaa hal nin darbiga iga xigay marka aniga ku soo booday qoriga aan la qabsaday haraantina waa ku dhuftay jaranjartu ka dhacay jaranjarta oo laga soo galo masaajidka kadib intaan qoriga soo wareejisanay dhinaca weysada
oo luuqu ku cararay marka anigana dhar shibilaan watay intaan qori soo qaato iridda marka la soo dawabixi karay markay koraa qori weyn saarnaa oo kuwa amisom iyo askarta dowladda marka luuqayga baan ku noqday dhufeyska galay markaas waxaa ii caddaatay inay ciidan dowlad ahaan oo nimanka jingalka daraawiishta wata ay yihiin al-shabaab marka meeshayda umaan difaac ka galo oo wixii kaloo soo gala inuu iiga hormareen maxaa tihiin markuu dhaho kadib adi daqiiqado kadib beebeegaa soo istaagay ugandheeska waa dareennay in xoogoo la durjiyey askarta dowladda daba socota beebeega askarta dowladda markay soo galeen maxaa tihiin warhana laayninaan dad rayidoo meesha ku go-doomaanahay maxamed maxaa keenay inaad qorigii la qabsato ma khibrad hore oo ciidan baad lahayd haa dabcan taydaan gelin qofka ilaahay dilaa dhinta ninkii ku xigaan ahaa ninkaa mar waa isbadbaadinayay marna dee khibradeyda hore u baxsado waxaan ka mid ahaa saraakiishii hore ciidanka qalabka sida saraakiishii hore booliiska oo akademiya oo ilaa heer tababar kumaando soo maray ilaahay badbaadiyey laakiin khibradeyda maanta waxbay ii tartay alxamdulilah markii dowladdu dhacaysay booliiska xilka kays waxaan ahaa tali ku-xigeenka saldhigga afaradood centraale